madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan oo sheegay in waliba galanimadii geeb ku soo booqday xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo xarunta raadiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kiyaalan gudaha madaxtooyada koonfur galbeed madaxweyne Shariif Xasan sheegay in guud ahaan uu hindhindhay xarunta raadiyaha iyo xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweyne Shariif Xasan sheegay in waliba wasaaradda warfaafinta usuka amaanay hoolay wasaaradda warfaafinta hayta oo mudarar koonfur galbeed iyo wasaaradda warfaafinta la ka amaanay bileeriyowka xarumo warbaahineed ee raadiyaha dowladda booqashada madaxweynaha usuka saadi markii dhamaatay runtii wasaaradda iyo waliba telefishan koonfur galbeed Soomaaliya faahfaahin ku soo kormeerka usuka madaxweynaha xarunta wasaaradda warfaafinta iyo raadiyaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaassan Cabdi Maxamed oo wasiirka ususaas oo kala ku hadlay bileeriyo kaaromo raadiyaha dowladda koonfur galbeed oo ka sheegay intii atamil failiyo marahayaan xarunta wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya hani booqday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo booqasho ka kooy xarunta wasaaradda warfaafinta iyo ninka raadiyaha koonfur galbeed Soomaaliya ujeedka madaxweynaha kooyn wali haytay news fiiriya meel wasaaradda warfaafinta guud ahaanba walqabadsiga marawhay gaar ahaan maadaama warbaahinta koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda warfaafinta maalmoon iyo bileerinka wadi walisan kooyn news ogaada raadiyaha koonfur galbeed Soomaaliya meel saxta marahay iyo nay raadiyaha cusub oo toddobaadkii la dhaafay magaalada Baydhabo la ka rakabi oo araga faday iyo natay xawli shay meel isu deero madaxweynaha siisin baragdan wali booqday xafiiska kiida iyo natay kan wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta saasaadkan wali booqasho ka seeday qaybta raadiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya soo madaxweynaha eedninka hambaliyay walqabadka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya muddadii iyo jarti iyo natay sidii walaa iyo qabsati inay wala ka faano koreen siisin ogdinba wali dib u balaarin ama dib u weyneeyo ka wadnahay raadiyaha koonfur galbeed Soomaaliya una rajayna 27 ama 28 ballan oo ilaahay indiinaba inay una raadiyo koonfur galbeed Soomaaliya qaybta xudurna furo doono alla Eurooba una oo toddobaadkii la dhaafina hawada galinay raadiyo Muqdisho oo hataba si toos ah dhageysadaha reer Muqdisho iyo caalamka si toos ah ugu dhageysadahay billaha dareeras bilawsha November 5 ilaahay idin sheegay wali rajayna inay una raadiyo baraawo oo hata dhismishay dareero meel fayla marahay sina haraga lagu jar doono hasaata koon in dhamana ilaahay idin sheegay intii sanadkan dhamaana in qorshaysana wasaaradda warfaafinta inay una dhisna raadiyaha ka dambeeyay mashruucan hata dareero oo dib u balaariyowka ama dib u weynayowka mashruuca raadiyo koonfur galbeed Soomaaliya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo ilaahay idin sheegay rajayo toddobaadka la dareero wafdu wasaaradda ku dareero inay soo doonaan meel la ka dhisafada raadiyo Walaweyn iyo habooqada doonaan marka ka wasaaradda sharaf weyn ay ata in madaxweynaha ninkooyo xaaladdan meel maraasni la qiimeeyay in la ogaada saas madaas ku dibna nin hambaliyo in arshaqo fayle wadana dhirgaliyaasa madaxweynahana kama hadnagaan booqasho sana booq Faisal Dawson KJS TV Baydhabo